baahnin inaan mawjeeda dad kale wax la siiyo marka sababihii aniga ay la iigu kacay baa waxay ka mid ahayd aniga kaliya maahan raggii arrintaas watay waxaan ahayn markaas aan arrintaas soo jeedinaynay ilaa 30 ku dhawaad baan gaar marka raggii arrintaas soo jeedinayay waa lagu kacay weliba aniga ninkii markaa afhayeenka u ahaa hadii jeer hadii jiray buu ahaa baan ahaa iyo nin kaleeto ahaa ninkii kaleete anoo joogaaba la dilay anigana waa dhowr jeer baan ku sirtay marka sidaa darteed ayaan isaga tegey oo aan uga baxay shirkaas marka arrinku waxa weeye waa qodo dheer yahay waa arrin aad u qodo dheer bay ahayd arrin laga wada sheekayn kara ma aha waxyaalihii markaas meesha ka socday waa hagaag marka dadkii ay ku hanweynaayeen ama ay dowladdii isticmaarka ah ama gumaystaha ah uu watay oo ay islahaayeen waxbay nii qaban karaan ma niila joogeen oo ma dad baa u diyaarsanaa mise waxyaalaha qodobada ee meesha soo sureen maxaa ka mid ahaa dowladaha isticmaarka iyagu ay wateen baa jiray dad baa mar kastaba xataa ay ugu qornaydba xataa waraaqahaas ay ugu qornayd madaxweyne ayaa u qornayd oo yaa ka mid ahaa dadkaas inaan ka sii dhawaajiyo dadkaas oo dhan looma baahna laakiin waxa weeye markii dambaba ayagaa asagii baa ka noqday ninkii raggii ka midka ahaa nin ka mida ayaa wuxuu noqday madaxweyne ka noqday meesha dadka hadda waxaa leedahay meesha jooga loogu talagalo waa dad lasoo carbiyey oo si fiican loo soo carbiyey loo soo koriyey loo soo jiheeyey si carbiyeysan loo keenay meesha ayuu ku jiraa ninka madaxweynaha wallahi waxa weeye horta sideeda halbaan kuu sheegayaa dadka oo dhan ma ahan soomaalida oo dhanna ma ahan laakiin dad badan oo lasoo carbiyey oo kasoo qayb galay oo waa qof kastoo soomaaliya inteeda badan oo siyaasadda ku jirtana way og tahay waxa weeye dad badan oo mawjeedaa aan ka mid ahayn oo soomaalinimadeedii iyo dadnimadooda ay ku jirtana way jiraan kuwa hadda jooga iyo kuwii markaas joogayba rag baa xataa markaa raggii ka soo horjeeday oo dowladdana ka noqnoqday qaar baa la dilay oo dowladdii wasiirkii dastuurka ayaa ka mid ahaa baydhabo lagu dili jiray raggii ka soo horjeeday oo arrimahaas ka soo horjeeday magaciisa yuu ahaa wasiirka dastuurka baydhabo lagu dilay waxa weeye baarlamaankii dowladda cabdiqaasim ninkii ahaa buu ahaa oo ka ahaa wuxuuna ahaa ninkii la oran jiray waxaa la oran jiray ninkaas wuxuu ahaa ra-iisul baarlamaankii lagu doortay carte ayuu ahaa okay dr sahal kasii wad meesha kasii socotay ee ahaa shirkii iyo miirinkii iyo waxa dowladaha caalamka ay rabeen inay idinka dhaadhiciyaan ama idinku maxhoos geliyaan waxay ahayd dad hanweyn oo ay ku jirta qab soomaaliya marka waxa weeye qabkaas in laga baabi'iyo beesha caalamku inay qabkaas ka baabi'iso anugu kolley sidaan u arkayay in qabkii soomaaliya lala dirirsan yahay oo in la baabi'iyo loogu talagalay ayaan u arkay sababtoo ah waxa weeye labada dowladood oo loo soo isticmaalahayay waxay ahaayeen dowlado cadowgii soomaaliya ah oo ah soo jireenka ahaa marka arrinkaas waxaan u arkaa inay tahay arrin loogu talagalay soomaalida qabkeeda in lagu baaba'sho soomaalidu waxay ahayd dad qab weyn leh oo aad iyo aad qabkoodu uu adduunyada dowladda koowaad dadka koowaad haddaan lagu sheegin dadka labaad noqon karay sida jarmalka oo kale dad qab leh baa jiray oo qabkooda lala diriro had iyo jeer adduunkuna taariikhda horay ay loo qoray oo dadka maanta buugta qoran ay ka mid yihiin inay dad ka qab weyn ummadaha jiro ilaa adduunku waa kala taariikh waana kala duwan yahay sax marka soomaalidu arrimaha lagula dirirsanaa sidaas bay ahayd adduunka waxa weeye waa la socotaa dowladihii burundi rwanda markii dagaalku ka dhacay rwanda in si degdega ayaa dowlad loogu sameeyey soomaaliyana 25 sano ayaan saa loo fiirin sababtoo ah qofka bini aadanka ah waxa weeye waxaa qabkiisa iyo bandimadiisa lagu baabi'in karaa marka la gaajeeyo oo amni darra ku dhacdo ilaa qofka bini aadanka noloshiisa ugu sarrayso waxa weeye waa inuu amni helaa markaas kabacdina waa inuu doontaa wuxuu cuno labadaasba soomaalida aad baa loogala diriray
waana muujeedaa iyadoo loo isticmaalahayay dhaqaale gooni ah oo Ethiopia iyo Kenya loogu dhiibahayay si ay dad ayagu ay helaan oo ay dadkaas ku gaajeeyaan kuna amni darrana ugu sameeyaan دكتور صح وي دكتور سهلة waxaa ka dhawaajisay inay dowladda international community iyo dariskaba ay carbinayeen dad badan oo ay sidii rabeen u leelinayeen si ay siyaasadooda uga haqabtiraan ama uga bogtaan dadka hadda madaxweynaha ninka ka ah iyo dadka meesha hadda jooga soo ma aha dad ka soo jeeda meesha oo dowladdii iyo international communitygii u ogaayeen inay raadinayeen dad communityga u dhashay dulka u dhashay wax hogaamin kara baarlamaan badan madaxweyne leh cabinet leh haddii ay heleen qofkii ay raadinayeen oo ahaa nin ka soo jeeda meesha ama dhulka deegaanka ku leh maxay kaga duwan tahay waxa ay rabeen ama ay raadinayeen uu u qaban karaa maxay tahay faa'iidada ay ku haystaan international community waxyaalaha ay ku haystaan waxa weeye Soomaaliya waxay ahayd dowlad yar oo geeska Afrika ku noolay waxa weeye weligeedba saaxiib ma yeelan horta aan ku sheegay wax saaxiib oo ay yeelatay intay soo jirtay ma yeelan waa sax oo ayadu dadkaas dhibaataysan oo muslimnimo iyo diin ahaan ugu soo orday maahane dad kale oo muujeedaa saaxiiba ma aysan lahayn nimanka maanta haystana anigu waxaan qabaa ilaa inay yihiin nimanka saddexda ninoo ugu roon oo aan is odhan karo waxaa ku jirta soomaalinimo iyo wadaniniyad baa ku jirto waa niman aan is odhan karo may fahan maalinba meel baa lasoo maraa hase ahaatee waxa weeye mar haddii aadan dad lahayn oo dadkaagii loo kala qaybshay qabiil iyo haddii ilaahay ku roon yahay oo kaankara ah oo cudur ah oo soomaalidoo dhan ku jiro hadda waxa weeye ayaga laftigoodu berritana sidii kuwii hore kale noqonaya laakiin haddii ummadda Soomaaliyeed ay dareento in cadowgii Soomaaliyeed ayagana ku kacsan yahay waa dhici kartaa inay ka sarfeefadgarowdo waxaan kuu sheegayaa rag barofesooro ah oo askari Ethiopiana maalin walba inta orda hoos tagayo baa Soomaaliya waxay ka yihiin gobollada Soomaaliya waxyaalaha lagu baaba'shay oo loogu talagalay waa dadka gobol federaalka looga sameeyey ma annagaa samaysanay federaal waxa weeye ma aana samaysan kuwaas ayaa noo sameeyey xooggayaga inay kala dhantaalaan bay rabaan dadnimadayada inay kala dhantaalaan bay rabaan aqoontayada inay kala dhantaalaan bay rabaan kuwa horkacayana waa kuwaasoo kale gaar ahaan kuwa ay ayagu soo samaysteen oo ayagu ilaa original horay u soo abaabusheen na waa jiraan sida muujeedaa Jubbaland oo kale oo maskaxda iyo muujeedaa iyo qalbigana Ethiopianka ah korkana iyo fayskana ka ah Soomaali ma maqlaysaa doctor ma maqlaysaa okay waxaad ka dhawaajisay in dowladahan dariska ah Soomaaliya cadow ku ah xilligii Soomaaliya nabadda ahayd ee madaxweynaha lahayd ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya la oran jiray in mid ka mid ah reer galbeedka qunsulkooda uu yimid uu maxaa la dhahaa madaxweynihii waqtigaas joogay Siyaad Barre ahaa uu la hadlay wax nooga sheeg arrintaas